السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب الجنة منير مرسكو حرن سود هذا وصاحبكين منير. ما أنتوا حروا إنا صودوا مقال عصب مقال كسر نقن دونا أما موضوع يسوي نقن دونا شيء وهدي أتسميسه نلش هذا مرة باكو فائدة دونت. عن سلسلة أنا سيدو كل ما أنتوا هاي تهماني مهم وام حال وحن كلها من دونا جامعة ده سنة كيشنات اختارك عصوبة مستقبل كهاي هدي هذا أوجين هذا إسكو أوجو aan isla socono insha Allah soo dhawaada saaxiibadeyda mar walba waxaan jeclahay inaan muuqaal idin soo duubo waayahay midka koowaad aan ka bilaabayno shan shay oo hadii aad sameyso wiliga aad ku faa'iideyso midka koowaad waa inaad wax barato oo aad degree ama diploma ama certificate wax uun aqoona fieldiga rabaan ahaado majaalka rabto ahaato inaad wax barato معد كبرو كوليج كبرو جامعة كبرو أونلاين كبرو وح والبو أبرتو وحاس مرة الفائدة هذيك وجرواي مرة البني وكل يعني خنطاس إفائية وحاس أبرتي علمي وكفائدة سا متكلمات إن الجيم آدو أما جميع ساعات سميسو إكسرسايز وحر خاب كروها هذا أما أرد سمي أما يوغا سمي أما جيم برقات ama jimicsi guriga ku sameey hadii aad jirka dhisto oo aad jimicsi noocyadiisa kala duwan aad sameeyso almiitadaas mar walba way kugu soo laabanaysaa faa'iideeda oo mar walba jirkaaga caafimaad oo jirka dadka kale uu ka caafimaad badnaana sidoo kale waxa noqonaysaa qof yani oo maskaxdiisana yani maskax fiican leh oo aad u fikira oo dadka kale sidii u fikiraan si ka wanaagsan u fikira maxaa yeelay jirka wanaagsan ay maskaxda wanaagsan ka imaataa marka mar walba almiit sameeyso ama gym aado ama nooc walba aado waliba gymka wanaagsan maxaa yeelay gymka hadda noocyo badan almiit isugu jira lagu sameeyaa bira lagu qaadaa jirka noociisa kala duwan lagu dhisaa caloosha lagu ridaa gymka ugu wanaagsan marka ayadana mar walba ilaa noloshaada faa'iidada iyo markaas benefitska gymkaas aad sameeynaysid ma hadda aad sameeysid mar walba yani way kugu jiray oo waxa aanaysaa qof caafimaad qaba oo dadka kale ka duwan jirkiisa jir qurxoon yahay maskaxdiisana si fiican u fikirayso midaas ma midka labaad midka saddexaad buug akhri mar walba ama isbuuc walba ama bil walba waa inaad hal buug ama laba buug iyo wax ka badan akhriso buug wuxuu rabo ahaado buug caafimaad ha ahaado buug dhaqaale ama business ha ahaado buug sheekooyin oo fiican ha ahaado taariikh ha ahaado qof noloshiisa abarnay sida nabiga sallallahu alayhi wasallam taariikh nololeedkiisa oo kale iyo qof kasta oo hadii aad buug akhriso mar walba faa'iidadaas way kugu jiraysaa oo yani aqoontaas iyo waxa aad ka faa'iido experience aad ka hesho mar walba inta aad nooshahay way kugu jiraysaa wax akhrintan muhiim waa midka ugu muhiimsan oo maleena qofka noloshiisa waxa la rabaa in isbuuc walba uu yaraan hal buug uu akhriyo maalintii uu yaraan hal saac uu akhriyo buugtana meel walba daadsiin wax ugu raqiisana waa kaasna waa midka saddexaad midka afaraad midkan waxa loo talgalay dadka xogaa dhaqaalaha yar haystaan wax maalgelin sameey waliba dhul ama gaadiid ama wax ama dahab waxyaabo real estate la dhaha jiraan maalgasho waxyaabahaas hadii aad maalgashato sida dhulaa gadatay si ijaar mar walba lacag faa'iido kaaga imaanayso tan waxa loo talgalay jeebka yani jeebkaaga mar walba lacag cusub soo dhacayso maxay dhaqaalaha iyo lacagta mar walba nolosha waxyaabo badan oo baahidaada ka weysa marka mar walba maalgashi sameey waliba aad ka fiirsatay tan ugu wanaagsan waa inaad dhul ma guurtay dhahan inaad gadato hadhoona aad si ijaarto hadii aad markaas aad digantahay dib ma laakiin hadii aad hayso lacag dhul ku gad si gada daartid ama dhulkaas mar walba ku yaalo si fiican u dhis dhulkaas lacagta kaaga soo baxdo mar walba noloshaada faa'iideeda oo helaysaa oo lacag ba hadii aad haysato waa qofka lacag haysto waa ilaan qodobkan wax loo talgalay dadka lacagta haystaan oo lacagtaada bangigiisa isaga jirin meel iska oolin meel ku maal gasho waliba dhul ku gado kadibna dhulkaas mar walba ijaarkiisa wixiisa kaaga soo baxaya adna faa'iido ku tahay kaasna qodobka afraad qodobka shanaad ee ugu dambeeyo waxyaabaha aad maalgashanayso ama aad sameeyso mar walba mustaqbalkaaga faa'iido ku leeyahay waxa waaye saaxiib wanaagsan sameeyso
mar walba aad saaxiib wanaagsan samayso oo aad leedahay mar walba saameyn uu ku yeesho waaye noloshaada haddii aad saaxiib wanaagsan leedahay dadka waa ka duwan tahay maxaa yeelay waxaa haysataa saaxiib wanaagsan samayso ama raadi saaxiib wanaagsan qofka aad la saaxiibayso ha noqdo qof tayo leh oo adiga aad wax ka faa'iidayso mar walba ma aha qof adiga mar walba u faa'iideynayso inaad adiga wax u faa'iidayso waa la rabaa laakiin inuu adiga kaa fiican yahay la rabaa kaa experience badan yahay kaa yara weyn yahay aqoon ahaan kaa fiican yahay jeeb ahaan haddii kaa dhaqaale badan yahay beelo waay saaxiibka waxaa soo geli karo xaaskaaga noqon karta ama ninkaaga nin wanaagsanaa guursid tusaale saaxiibkaaga waay ninkaa guursanaysid ha wanaagsanaado naagta ama gabadha aad guursanaysid ayadana ha wanaagsanaato oo qof adiga wax kugu soo kordhiya ha noqoto meel qof walba oo kula doodo ku dhibaateeya meel xun ku wada aysan noqonin ama yuusan noqonin saaxiibka waxaan ka wadaa ama guur ahaado ama saaxiib caadi nolosha ama wiil la saaxiib ah ahaato ama gabar la saaxiibsa ama wiil gabar la saaxiiba oo guursanayo ama gabar wiil fiican guursanayso oo ayada ka wanaagsan oo saaxiib wanaagsan u noqonayo oo hagaay muuqaalka meeshan kusoo gudbeyna kuma santiin daawashadiina fadlan waxaan idinka codsanaa in aad channelka ku cusub tahay subscribe saar channelkan sidoo kale muuqaalkan like saar si dad badan ay u sii arkaan muuqaalka ma santiin. Assalaamu calaykum soo dhawaada.